السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كان مركز السود وهذا أدي هذا وما تنتهين مقال كان وحرب إن ندي كل وذاقه حالة كتاجن مركب USS أبراهام لينكولن وكسوجن بريء ده جارهان ميلان كفوجين مرينك هرمز waxaan uu ka mid yahay maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee diyaaradaha xambaara ee go'doominta ku haya dawladda Iran 5,000 oo ciidamada badda ee Mareykanka ayaa saaran marka ciidamadaasi ayaa waxa laga soo tabinayaa xaalado maskaxeed oo kala duwan maxaa yeelay muddo ka badan muddadii loogu talagalay in ay badda ku jiraan oo waxa loo baahnaa inay soo laabtaan oo meel dekada la geeyo ayaa 250 maalmood kor u dhaaftay sidaas darteed cunto xumo nadaafad darro iyo xaalada maskaxeed ay ka cabanayaan taasi oo sababtay in laba kamid ah horaantii bishan ay badda isku tuuraan oo ay doonaan inay istilaan laakiin la soo badbaadiyay waalidiinta dhashay marka ciidamadaasi saaran markabkaasi ayaa hadda warbaahinada xaaladaha maskaxeed ee ciidamadaasi ay ku sugan yihiin oo soo bandhigay taasi inkastoo wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Mareykanku ay beeniso wasiirka gaashaandhigga uu beeniyay haddana isla shalay waxaa soo baxday in markab kale la dirayo si uu markabkaasi u soo bedelo haddaba marka maxay yihiin xaaladaha ku gadaaman ciidamada saaran markabkaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago waalidiin hadlaya xildhibaano dimuqraadiyiin ah oo dawladda ka dalbanaya arrintan in baaritaan lagu sameeyo iyo wasiirka gaashaandhigga oo beeninayo codadkaasina waan idin maqashiinaya balse marka hore soo dhow shalay waxaa soo ifbaxday oo wargeyska Military Times la yiraahdo uu soo bandhigay xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidamo gaaraya ilaa iyo 5,000 oo ciidamada badda ee Mareykanka kuwaasi oo saaran markabka diyaaradaha xambaara ee weyn ee USS Abraham Lincoln la yiraahdo markabkan waa markab kamid ah maraakiibta go'doominta ku haya dawladda Iran isla markaana joogo meel aan ka fogeyn marinka Hormuz marka ciidamada waxa loogu talagalay in muddo marka ay badda ku jiraan in meel dekada la geeyo isla markaana sidoo kale muddo ay halkaasi ku soo qaataan ama wadanka dib loogu soo celiyo markabkan waxa uu Mareykanka ka baxay bishii November ee 12keedii sanadkii 2025 marka 9 bilood ka badan ayaa ciidamadaasi badda ay ku jiraan 245 maalmood oo isku xigtana waxa la leeyahay maba aysan arkin badakad oo badda ay dhex joogan marka waxa ay xitaa sawirro u soo direen qoysaskooda Mareykanka ku sugan laakiin inta badan sawirradaasi lama soo bandhigi karo maxaa yeelay waalidiintu waxay ka baqayaan in ciidamadooda ay tilaabo kala duwan wasaaradda gaashaandhiggu ay ka qaato sawirkan ayaa kamid ah oo cuntada la siinayo in wax isku mid ay tahay isla markaana ay aad u yar tahay isla markaana caafimaad ahaan ay liidato waxa kamid ah musqulaha oo nadaafad darro ay ka jirto waxa kamid ah inaysan haysan waxyaabo ay ku cadaysadaan ama saabuun ay ku qubaystaan taasina waxay sababtay in xaalad maskaxeed oo halista ciidamadaasi oo gaarsiisay qaarkood inay markabka ka boodaan oo ay istilaan inay gaarto marka mid kamid ah ciidamada saaran oo magaciisa aan la sheegin isla markaana xaaskiisa ay warbaahinada la hadashay magaceedana la qariyay iyo waliba muuqeeda ayaa faahfaahin waxay ka bixinaysaa xaaladda maskaxeed ee ninkeedu uu ku sugan yahay waxa ay arintan soo baxday markii wargeyska uu shaaca ka qaaday Military Times xaaladaha kala duwan ee ciidamada markabka USS Abraham Lincoln saaran ay ku sugan yihiin waxana ay arintan sidoo kale soo shaac baxday maalnimadii shalay marka xaaska ninkaasi istuuray 3 bishan isla markaana muddo saacada markii biyaha uu ku jiray kadib la soo badbaadiyay waxay leedahay 4 maalmood kadib ayaan ogaaday markii biyaha intuu isku tuuray la soo badbaadiyay waxana ay sheegtay in mid kamid ah saaxiibadii oo markabka la saaran uu u soo sheegay uu yiri qof ayaa iska tuuray markabka waana la soo badbaadiyay markii dambena waxa uu sheegay ayuu yiri qofka istuuray in uu ninkeyga yahay ayuu sheegay saaxiibkii ay leedahay markaas kadib qoysaska ciidamada markabkaasi saaran waxay kulan la yeesheen hoggaanka ciidamada badda gaar ahaan San Diego oo markabkan saldhigiisu ahaa oo ciidamada intooda badanna San Diego California ay ka soo jeedaan ilaa iyo 200 oo kamid ah qoysaskaasi ayaa kulan waxay la yeesheen oo ay kula yeesheen xarunta qol ku yaala Naval Air Station North Island oo San Diego ah 6 bishan isla markaana waxa ay la kulmeen waxyaabo aysan filaynin waxay hoggaanka ciidamadu ay u sheegeen
in aysan wax commentiya aysan ka bixin karin ciidamada halkaasi saaran isla markaana aysan ogeyn wax dhibaato ah oo jiro arintaasi oo carab weyn qoysaska ku abuurtay markii dambana waxa ay u sheegeen in uu jiro qof markabka iska tuuray laakiin la soo badbaadiyay haddana baaritaan lagu hayo xaaladiisana ay wanaagsan tahay waxa sidoo kale qoysaskaasi ay xaqiijiyeen in mar kale haddana 7 bisha ay kulan kale ay la yeesheen isla markaana sidoo kale ay warbixino ka heleen hogaanka ciidamada badda ee Mareykanka marka xaaskii ninka istuuray oo warbaahinno la hadashay laakiin magaceeda iyo muuqeedaba la qariyay ayaa waxay sheegtay markii ugu dambeysay oo ninkeeda ay wada hadlaan inay ahayd bishii 7 ee la soo dhaafay July 21 waxaana uu sheegay in xaaladda maskaxeed ee haysata uu quus taagan yahay oo meeshii ugu dambeysay uu marayo waxa uu yiri 15 July ayay ahayd in aan soo baxno oo aan dibna loo soo celiyo laakiin waxa uu ii sheegay ayay tiri qoraal ayay ku wada hadlayeen fariin qoraaleedyo in uusan mar dambe awoodi doonin in howlgal dibadda ah uu u baxo isla markaana uusan hubinba in uu midkan si nabad ah ku soo dhameysan karo macnaha xaaladiisu halka ay mareysay ka hor inta uusan istuurin meeshii ugu dambeysay ayay mareysay waxana sidoo kale ay xaqiijisay in ninkeeda uu la hadlay hogaanka ciidamada ee markabka saaran xaaladiisa maskaxeedna uu u sheegay in uu daalan yahay waxayna ku yiraahdeen waad wanaagsan tahay oo wax dhibaato ah ma qabtid marka ninkeedu waxa uu ahaa mechanic dhinaca diyaaradaha gaar ahaan helicopteriska isla markaana markii ugu horeysay oo howlgal wadanka dibadiisa loo diro ayay ahayd marka waxay tiri xitaa ookiyaalaha uu watay lenses ayaa ugu jiray waa ay ka dhaceen taasina waxa ay dhibaato u keentay xitaa shaqadiisa oo uusan arkaynin maadaama mechanic uu yahay waxyaabaha uu qabanayo marka xaaladaha si kala duwan iyadoo ay jiraan ayaa shalay wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth oo wadanka Panama ku sugan arrimahaas wax laga weydiiyay wuuna beeniyay waxa uu yiri ciidamadeena wax kasta oo ay u baahdaan waan siinaa bal waa kan isagoo arrintaasi ka hadlay completely misrepresented. Listen, we make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment. laakiin hooyadan oo iyaduna telefishinka NBC la hadashay xalay isla markaana waalidiinta mid kamid ah ciidamada saaran markabkaasi ayaa waxa ay leedahay ciidamada waxa uu ugu yiri wiilkayga waxaan u maleynayaa dhamaanba dadku in ay meyd yihiin laakiin aan la ogeyn waxana uu sheegay in uusan ogeyn xilliga ay dib u soo laabanayaan xaaladda maskaxeed ee haysatana ciidamada intooda badan ay aad u liidato bal waatan hooyadaasi oo iyaduna xalay warbaahinta NBC la hadashay She was in good spirits, but once it started going past the what they anticipated to be their return date, I could definitely see a change in his overall mental health. And where he had been very positive, it started getting very dark. He describes the overall experience as a scene out of the American Horror Story, where he feels like everybody is dead, but they don't know it yet. And a lot of concern about when they're going to go home. in xaaladahaasi ay jiraan waxa cadeyn u ah telefishinka CNN-ka gabar ka tirsan oo Pamela Brown la yiraahdo ayaa bishii la soo dhaafay ee July 10 markabka kortay waxa ayna meesha ay ku cunteeyaan ay ku wareysatay mid kamid ah ciidamada saaran oo waxa uu ku yiri cuntadu aad ayay u liidataa sida aad maqashay xaaladda maskaxeedna waa ay jirtaa waxyaabaha aan isku madadaaliyay waxa kamid ah inaan gym-ka aado haddaba mid kamid ah askarta markabkaasi saaran oo CNN-ka la hadlayay July 10 sidan ayuu yiri Actually, I would say morale's pretty low. And not just in the division, like in the ship entirely, you know? Personally, what helps me is I go to the gym, you know? I'm trying to better myself, you know, every day. But it's hard. The food, I'm sure you heard the food was pretty bad for a couple of months. We were surviving on not a lot. And it takes a lot to push through, persevere, keep going, even when it gets hard. arrintan marka waxa ay sababtay in xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira Congress-ka ay xitaa waraaq ay u diraan wasaaradda gaashaandhigga isla markaana ay yiraahdaan waxa loo baahan yahay in arrintan baaritaan lagu sameeyo Senator Markey oo California laga soo doortay waa gobolka markabkan uu ka baxay 22 November sanadkii 2025 inta badan ciidamada saaran qoysaskoodana sidoo kale ay halkaasi ku sugan yihiin ayaa waxa uu yiri dagaalka madaxweyne Trump uu san qorsheynin uu ku qaaday
Iiraan isla markaana hadda uusan haynin wax qorshe ah oo dagaalkan ku joojiyo ayaa sababay in ciidamada muddo intaasi la eg badda ay ku jiraan xaaladan maskaxeedna ay la soo gudbeen marka waxa uu yiri waxaan rabnaa in arintan baaritaan dhab ah lagu sameeyo oo kuwan marka xildhibaanada oo arintaasi ka hadlay. We're trying to get as many details as we can, but the bottom line is this should never happen. I know people are seeing the news stories about the USS Abraham Lincoln, about them being on cruise for an extended period of time, not being back in port for 250 days, and the mental health issues that some of the sailors are having, some of which have reported that they've tried or contemplated jumping off the ship. It's a tragic thing. It's horrible to think that we have service members who are, there defending our country, who feel like they don't have another option. I'd say the other issue here is why this is really challenging for folks is that this president got us into this war with Iran with no strategic goal, without a plan, without a timeline, and he has no way out. And because of that, you've got these deployments that are being extended to much beyond what anybody had anticipated or planned for. Hey, service members know they're going to have to go overseas and defend our country. haddaba marka arintan markii ay soo baxday isla shalaba waxa soo baxday in markabkaasi lagu bedelayo markabka la yiraahdo USS George Washington laakiin lama oga muddo intee la eg ayay qaadan kartaa in markabkaasi uu gaaro halka markabkan uu ku sugan yahay oo ah bariga dhexe isla markaana markabkan kale lagu soo bedelo. waxa sidoo kale jirta in laba markab oo kale oo USS HW Bush ilaa iyo bishii March 31 sanadkan 2025 uu ku sugan yahay bariga dhexe. waxa sidoo kale jirta US Gerald Ford isaguna 336 maalmood ilaa iyo June 24 sanadkii 2025 ayaa isaguna waxa uu ku sugan yahay bariga dhexe. marka maraakiibtaasi dhamaantood waxay ka mid yihiin maraakiibta go'doominta ku haysa dawladda Iiraan oo diidaya maraakiib inay gasho Iiraan isla markaana ay ka soo baxdo oo saliidooda ay soo qaadaan. markabkan USS Abraham Lincoln waxa la leeyahay laba mar ayaa xeeb u tagay. mar waa December 12 sanadkii 2025 ee la soo dhaafay Guam ayaa si kooban u tagay. marna July ayay ahayd oo Oman si kooban u tagay bisha July 7. marka labadaasi mar ayaa la leeyahay si kooban u xeeb u tagay laakiin 250 maalmood oo isku xigta ayaa markabkan oo ciidamada saaran aysan wax xeeba imaanin. inta badan arintaasi ma dhacdo. taasina waxay sababtay cunto xumada, nadaafad darrada iyo xaaladda maskaxeed ee ciidamada saaran markabkaasi USS Abraham Lincoln in meeshii ugu liidatay ay gaarto, taasi oo sababtay inay markabka iska tuuraan oo ay damcaan inay istilaan. marka haddii aad garanayso qof ku fikiraya inuu istilo amaba sidoo kale xaalada maskaxeed qaba, numberka 988 ayaa la wici karaa si qofkaasi uu u helo la talin isla markaana la talin caafimaad oo halkaasi lagu la taliyo. aad iyo aad u mahadsantahay.